fadhiga mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa mudanayaashu u ballansanayeen dhageysiga warbixinta waxqabadka howlaha shaqo ee wasaaradda tamarta iyo macdanta waxaana golaha horyimi wasiirka wasaaraddaas iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland mudane Xuseen Cabdi Ducaale ayaa madasha golaha wakiilada siiyay warbixinta howlaha wasaaraddaas ay ugu xilsaaran tahay qaranka iyo qorshayaasha mashaariicda ay ka hirgeliyeen dalka isagoo wasiirku sharaxay guulaha wasaaradda tamarta iyo macdantu ay ka fulisay dalka muddadii uu gacanta wasaaraddaas uu mas'uulka ka hayay isagoo iftiimiyay in lagu guuleysto wasaaraddu hirgelisay in dalka laga bilaabo macdan baadhis iyo khayraadka dalkan ku duugan ee Ilaahay uu ku manaystay tiraba 3 kamari ayaanu isneeyahay idin baadheen waxa la yiraahdaa industrial mineralska macaadinta yani waaweyn ka mid tahay birtu marka arintaas xaga macaadinta runtii dalkeedii wali weynoo laalan yahay kama aan soo xadin insha Allah waan ku hawlanayna kuwa iyo qaar kaleba inaan magaranaysa aanu dalka keeno oo aanu baadidoonkaas aanu sidaynu heli lahayn macaadin tijaariya aanu magaranaysa hello waxyaabahan weeyla qabanay sidaan muuqaalka dalkeena khayraadka ku jira aan soo ugu qaadno anigu bisharar badan oo caalami ah ayaan ka qayb galay kii ugu dambeeyay waxa ka Australia tagay oo dhowr kun oo shirkadood aan u bandhigay khayraadka dalkeena yani Ilaahay dhigay aynu isleenahay yani kamiya tijaariya baa laga heli karaa laga soo saari karaa waxaan idin sheegayaa gole in 7 shirkadood oo caalami ah ay dalkeena ama ay ka shaqeynayaan oo iyagu operators noqonayaan ama ay saami ku leeyihiin shaqada socoto 7 shirkadood oo caalami ah xildhibaano kamid ah golaha wakiilada ayaa mas'uuliyiinta madasha golaha wakiilada hor fadhiyay ee wasaaradda tamarta iyo macdanta u soo bandhigay su'aalo la xiriira shaqada ay wasaaraddaasi bulshada mas'uulka uga tahay halka xildhibaano kale ay u soo jeediyeen talooyin ay ku soo jeedinayaan horumarka wasaaraddaas wasiirka wasaaradda tamarta Soomaaliland mudane Xuseen Cabdi Ducaale ayaa dhammaan weydiimaha mudanayaasha si qoto dheer uga jawaabay